الرحمن الرحيم. أحمد waxay la tahay su'aalaha weydiisay waa qaar jaamacada laga dhigi karo saacad iyo barnaamij yar oo sidaan ku bixi karaan halkan imika waxaan ku hayaa report maalinta aan qoray xaqiiqo maanta laga baxay dhowr ishu ee la akhriyay hadii la sahal akhriyo iyo sida wax u haayeen balse markaan soo koobo SNM waxa lagu yaqaanay oo taariikhda u galay 3 dagaal oo ay qaaday oo ku cusbaa dagaalada adduunka oo guuri waaweyn ka keentay dagaal markaynu ka bilowno wuxuu noqonayaa 83 markii ay hawlgalka bilowday ilaa 84 waxa kamid ah adduunka ka argagixiyay furashadii jeelka Madheere ee 6 la furay ee uu jabiyay rag badan maxaa bisoo ka sii daayay dhacdadii Abdullaahi askar lagu xoreeyay barjeex laga baxay oo adduunka oo dhamay akhri kari waayay ama uu qaadan kari waayay xaruntii qaybta 26aad ciidan inta leeg saa u aloosan in laga dhex baxo iyo dagaalkii buuraha oo taariikhdiisa leh oo rag jiida qarfada ay sida isugu qaadeen iyo si cadiga u naafiyeen iyo barnaamijka hawsha u dhigeen mid buu ahaa kalabaad wuxuu ahaa oo taariikhdu xusaysaa intii u dhaxaysay 85 ilaa 86 sidii ay raacyada hore ee cadowga ay u naafaysay SNM dagaaladii keedka ay ku soo qaadi jirtay xuduudaha kamid yihiin Baleecabane Hagar Boorle Bisiqa Talabuur Gumburaha saldhigga Burceha booliiska magaalada Burco iyo maxkamadii la saaray gacan ku dhigay nabad sugidda Axmed Aadan gobolka Waqooyi ee Hargeysa dhexdeeda lagu xukumay ee lagu fuliyay xukunka dhammaan waxay ahaayeen dhacdooyin taariikhda gaalay oo SNM kaga duwaneed inta badan jabadaha Afrika وجبهة أفريقيا ميل فوق بيحكي تورتورا تصدحات واحد دقال كي كذا قالك مي تضيع تنكيدي يكوبيستون كيمد وصدح قيبود دقال تاريخ الدون قالي فكرة دقال وصب كياني ديرهنان يشي تاريخ الدون كلا بنقطي أنا هو أنا إنت على الدون كدقال على قرب دوام تنوصل نقول صدق يكودي مي وحنكون كمنا اليوم أنا وهرجيسة ويعيد كهرجيسة أنا ورد دجال ديار جروج صدق وجهة دلقة لها مركي دجال كا بسوق جاي وحنا لقوستي يدور لقوا ويا أرك لقى قادنا ويا أرك دجال كي هراء بورة وحلقوا أنصدي إن عدو لقوا ويا حرمه ويا وحلقات فكرة دور النساء مس مدح حلقة دله مركا إن عدو والله جابيو أي لقوست نبتدي خطرتي أنا لو بريرو waxa lagu tashaday dhowr amuurood ta hore cadawga oo isagu xoolo doon ahaa ee dagaal doonahay oo ninkii naga soo horjeeday waqtiga ee dowladii baqasho shaqeynayay inuu noolaado wax xoolo halaagu doonayay ninka asan inuu dhigtaa doonayay oo ay meel ku noqdaan ma jirto taas waxay ahayd ciidan oo suuq makareen oo ninka boqol dhigmay talabaad waxay ahayd dadka oo dhamaantii asan marxasana oo dagaalamayay oo ninku markuu kaligiis soo galo hargeysa dhammaan raacay marka ciidan badan buu u baahnay هذا أم ترى يرين أو عيدا كنتم كنا نجلس ورجالنا كنا هاي بقول كنا هرجسان يا بقولال كنا لا بقول كنا هرجسان كصوت شنو والسعودي إذا ما هرجش صدق وحكروا له بتشذي أو لو ورك على حرمته أو لو جاب غنين يدو عدو على ارتباطي شوادو لسينا فيه أو حتى المغلي شرتين مرة قالوا دبري أنا يراد هذا إن عسياش يعني ما كان يا خالص يا ما بغضان ما يهين يروحها إن بتصاهري وهراء عيديسه dayuurada iyo madaaficda halkan ku soo dhacaysa shalay ayaa lagaga qabsaday kala bayrka dagaal aad iyo aad u xun maantana waxay soo qaadeen weerar waanay ku jabeen weerarka waxa lagaga gubay taangi bye chiibna waa lagaga qabsaday bisha maanta waa November 23 1988 يا رصاصي ليك ديورها هذه مقلتي
madaafiic ku soo dhacday magaalada dhinaceeda shishe oo meel fog faqasta yaada ay ka soo ridayso waxaad aragtaan ciidamadeenna oo meelaha soo socda baaburrada oo geedaha ku jira iyagoo socda maanta jabista ay halkan ku jirtay faqash waa tii ugu dambaysta ahayd dagaal dambe oo ay soo qaadeenna kuba hadhin ayaan u malaynayaa waxaa lagu tala jiraa in socod lagu luuqaynayo heesaha caanka ee wadaniga lagu galo magaalada Hargeysa innagoo marka horeba cidhifyadeeda iyo tacalladeeda oo dhan deganba kooxdana waa kooxda ciidamada humaysan ama SNMta oo dagaalkan maanta socda isagoo ka dhex socda kala baydhka ciidamada SNMta iyo faqashta ka qayb galay halkaas jeedka waxa sii jeeda dhagaweyne oo taliyaha guud ee ciidamada waxaan hoos joognaa mooskan halkaasaana la garidayaa faqashta hubkan waana maqlaysaan qaraxa iyo qiiqa ka baxaya kala baydhka waxa weeye bartankiisii oo ciidamada SNMtu ay taagan yihiin halkaasoo bishii 23keedii laga dhaqaajiyay cadowga oo laga kaxeeyey xoog wadadan oo ah wadda aad iyo aad u muhiim ah oo ka dhigan halbowlaha dagaalkan iminka Hargeysa loogu socdaa Hargeysa hareeraheeda sidaan horeyba ku soo sheegay iyo gudaheedaba SNMtu kama badnaa oo way joogaan hase yeeshee waxaa la doonayaa in la dabarjabiyo oo aanay dhaqdhaqaaq dambe yeelan ciidamada faqashta wadadana waa wadda laba xuraan ah oo isku xidha Gabiley iyo Boorame halkaasoo ciidamada faqashta ay ka soo urursadaan ciidamadooda waa bartankii kala baydhka muxuu ahaa baalka halkan yaalla oo maalintee la gubay talow dagaalkii daraaso 23keedi dhinaca bidixda inaga xigtaa laga soo tagtay markaasaa laga soo tagtay isagoo halkaas soo socda hey halkan ku dhacay oo maalintii jiirkana la qabtay soo maaha hey maalintii jiirkana la qabtay guul wanaagsan ninka wada meel Muuse Beexi oo watay ciidamadii kala baydhka qabsaday isaga baabuurka wata maaragtay bargaarkiisii oo la socday saraakiisha intii kale ee dhammayd
قلت هذا لواتنات أورك صدحات ودقال كترتاح نوع تليه أورك أحمد ياسين أي ليلة تليها أورك صدحات قلت هذا لواتنات أحمد ياسين بدأ بحديدة هي كارثة ويسن أو يسارين دكتور أحمد هي محمود ونقدر ورا اللي يبلا كارثة سيئة يا مان سوداني رجني وقول كنتي سبدني سوي هل كان هو مقالة الله يبضي واحد إذن هرفر يا جدي قيبت الشناد أو قلب ليس أسنم مضحدي إذا مضحدي السياسة دكتور هذه إيو ragga kale siyaasiyiinta ah oogada oo daruuro cirku leeyahay maanta waxaad ku aragtaan calanka SNM-ta oo aanay dabayl fara badan ahayn sida awadeedna aan si wanaagsan u nuumaynin waxay noo bilaabi doonaa hadalka iyo shirkanba Colonel Musa Biixi bismillahir rahmanir rahim anigu waxaan ku koobanayaa war isbarida odayaasha odayaasha halkan la fadhiya waxay ka kooban yihiin maanta Sheekh Axmed Qaalib oo ninkii wixiga waxa ku xiga Maxamed Ibrahim Khaliil waxa ku xiga Sheekh Aadan Biixi waxa iga xiga Dr. Obolos iyo ninkan ugu fiixiyo jaamaca marka odayaasha ayaa ereyo xaaladda meesha ka oran doona ay ugu horeeyo ay noo furo Sheekh Axmed Qaalib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون صدق الله العظيم أروح عن كذا يا مرحلة ما تجوك آيات القرآن هي وفقسم مرحلة ما أنت جوكتو مدي أمته ابن آدم كلا إله أن بهل كل شيء وكل هاي أمته الصومالية لنا إكارها أسي أكتر تاسو آين لغو شرو هلقا حق واجب سيدي إلهي يلي أصعده هلقا أمديد هلقا إسلام هلقا شعبي taasoo ilaahay farahayo marxaladu haddii ay halkaa marayso midba meel u joogaba inaan loo kala hadhin rag iyo dumar sagiir iyo kabiir oday iyo inan iyo awba isagoo ilaahay taa tilmaamaya inaguna guubaabinaya wuxuu ilaahay yidhi walaa tahinuu dib ha uga dhicina hana ka daciifina في ابتغاء القوم عدوغا إناد بالي قوبتان والعدوغا هادشتان وقوبتي أجوغا بأقوغا شام ذاتكي أرنتها كإتال درهية أما دبوغا دعيها نغلين صوبتنا أي تهيبوا إلهي لي إن تكونوا هدئتهين ذات يهو إسلام فيه حق ذرقي تألمون كوي حنوصنا إياه أما دمان إياه أما داوعما إياه أما الدعم يهدئتهم فإنهم عداوه يألمون ويحمصنيا وأنا دمانيا وأنا دعميا وأنا دبونيا وأنا داوعميا عدونا كل مهير بوتاغيهي عدونا ما أنت تاغن آيات وطوالي سوحوي سياد برهنك الله يراهو يوحي وكأدكتوه ومدى إلهي بقوة بنا يالله الله يانوح وي ومدى كالسهر جيدة الصوماليات مقعيد SNM هي إسلام الموقف حول هذا إلهي بقوة بنا إياه هذا بها دي الحموطة قبطان تقال الله أصبح لباتضا عدونا إنتا هي إلا يقول لباتضا قبطان سيدا وحا إذين دي يربوني هذا مدى إسلام كأدهين وترجون وحا الرجين إنسان والإلهي كفلان إنسان ما لا يرجو
waxaan iyagu ilaahay ka filanayn oo ah in ilaahay aakhiriya adduunkaba idin gargaaro aakhirana uu idin geeyo jannada adduunyadana uu siiyo kaalmaha sida uu u siiyey ee haddaba muuqataba ummadda islaamka ee soomaaliyeed ee SNM layidhaa iyo wixii gacan hayaba sida hadda uga muuqato ee goobtii la arkaba cadowga annagoo mushaahid u arkayna laga guulaysanayo hub wuxuu sitay laga furanayo hanti wuxuu sitay laga qaadanayo ayaguna ay meeshaasi ku leexanayaan iyagu oo moodo ayax la sameeyey ama korkor la sameeyey adduun waxaan soo koobayaa waa halgan islaamiya waa halgan ummadeed soomaaliyeed waa halgan dhibaatada iyo xanuuntada soomaali wada taabatay la socda oo gacan siinaya waa mid aan loo kala harsanayn culimo iyo kayrkeed waana mid laga gaadhay guulo waaweyn oo la taaban karo laga gaadhay oo uu ka mid yahay calanka caawa aan hoos fadhina ka mid walaalahayga hareerahayga joogay kuwa maqanna waxaan farayaa sidaa ilaahay ina faray inaan ku tallaabsanno inaan marnaba ka hadhin cadowguna wuu jilicsan yahay aynaan dib uga laabanin ilamaa aan gebagabada u dambaysa gacanta ku dhigayna waan ka baxay anigu haddaanay axmed khaalid waxaan uga baxay maxamed ibraahim khaliif بسم الله الرحمن الرحيم waxaan anigu ku hadlayaa SNM-ka qaybta shanaad sidaa u sheekh badiyey abaabulka sidaa ilaahay bayna faray sidaa abaabulkeedu yahay odayaasha dhalinyarada dumarka carruurta sidaan loogu kala harsanayn sidaa dadka aad u moodo siyaamaha dadka waxaad moodaa inaan qof daalayaa jirin inaan qof caajisayaa jirin inaan qof xanuunsanayaa jirin inaan qof dib uga dhacayaa jirin ilaahay wuxuu dadka garsiiyey ood aad ula yaabaysaa sidaa xadiiska ilaahay inoogu sheegay sidaa ilaahay inoogu sheegay dadka sida inuu ku sifoobay baad u arkaysa dadka qaybta shanaad marka aan allay baday geed ballaad kalabay togo jaale cabdaroosh qaybta shanaad dhulka ay xoraysay ee shacbigu degan yahay shacbiga iyo xisbiga SNM markaad aragto eegto si dadku isugu duuban yahay waxaad moodaa sidaa lagu karsiiyey dadku inuu rag iyo dumar tababar qabo oo la wada tababaray iyaad moodaa dadku waa wada heegan madaale habeen iyo maalin wax daalay wax fadhiisanaya wax caajisaya wax oomaya waxaad moodaa dadku oon iyo gaajo inuu midna qabin inuu dabaqsanay sidii dadkii la odhan jiray gawskooda ka cabbaan inay gawskooda ka cabbayaan iyaa dadka moodaa ilaahay sida ugu karsiyey gibaha ay gaadheen waxaad arkaysaa inaan sitaa hore aakaya oo dabbaabad eryanaya ayaad arkaysaa oo aan naftiisa wax damaqsiya iyo wax dibu soo noqda aan midna lahayn waxay ku kalsoon yihiin dadku inay guul kama dambaysa gaadhayaan inta badanna guuliya ay gaadheen sidaa loo karsiyey dadku waxaad moodaa inaanu waana u baahnayn inaanu wacdi u baahnayn in alla karsiiyey oo alla waafajiyey iyada oo nin waliba ku leeyahay dhibaato wixii aan isoo maray dhibaato wixii aan u soo maray isoo maray wixii gumaysi iyo ihaamo iyo dhac iyo dili gaadhay miyaan maantoo kale caajisaa dadku halkudhaggiisu caynkaa weyn dhammaantii isaga sidaa isugu wacdiyaya uma baahna abaabul ilaahay baa karsiiyey waktigu waqtigaan nagu soo gaaban waxaan kaga baxayaa guul kama dambaysta in la gaadho waa la gaadhayaa in ilaahay guul haynu gaadhin waana la gaadhayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan igu tegayaa sheekh aadan aamin oo midigta iga fadhiya bismi illaahi araxmaan araxiim waxay ila tahay waa waxa dhameeyey sheekh axmed khaalid iyo maxamed ibraahim baa hadallada badankoogii dhameeyey wuxuuna anu halka ka yar taabanayaa sifada maanta joogta iyo sifaday halkaa aanu maanta fadhinaa ay taagnayd daraartii dadkii caasiyiinta ahaa kaafiriin odhan maayo dadkii caasiyiinta ahaa ee halkaa fadhiyayey ee islaam isku sheegga ahaa wixii ay halkaa ka samaynayeen markaad ku qiyaasto cibraad ka qaadanaysa waxaa ka mid ahaa halkaa iminka aan fadhino waa meeshay rag iyo naago isku fuulfuul ay yidhaahdeen wey ninkii halkan xukumayay halkaa iminka aan fadhino xafiiska aan fadhino waa meeshuu yidhi rag iyo naago halkaa hortayda isku fuulfuula
أما رقوا يسفولفولا سيدي شيلود ما بعنان مقال وحرقوا يسفولفولا إلى هذا وتاسع نوجه الرئيسي ورتا أنت هتان أنا وحقا كثير جدينية حدي حقا لون نقضه إسلام ماذا وحيلتهاي وحي سومالي بكم ماذا نوي نقوى بريه واقرتا والله قرنيا ما أنت نلوش سيدتهاي هي درارتي أي هل كاجوين سيدتهاي عمرات الدولكا إن كستو دجال جرو إن كستو أي جرتو وحياله دبعته بدني أو جرو دجال وجرو حتى أنا ما أنت نمعنا اللي وجرو واركيسان وحجري جرتي يلو جيلانيو قول لك للي هاي ما أنت قوم الصبح يا إلهي سبحانه تاسي وحدو قرنسا إشارة إلهي وتو سبحانه وتعالى ودك كيسا أو أن حريصنا يوم وكابيه أي ودبوحان جلالكي أنو لأركينين قلت وحن ليهاي نحريستي الدربة والحلي نينك إسلام كي والله قرتا وحياله قوشو كوهليو والله قرتا أنه واندنا مني وانو أرقني رارتي هالكان لوغو يمد waxa jirtay inaanu ruux hagaagsan magaalada aan joogin oo wax baqday iyo wax dhan cararay iyo wax la dilay aan wahay maanta alxamdulillah waa la isugu yimid waxaan leeyahay guul baanu taaganahay maanta inta noo hadayna waa in de waxba horta nooma harin tan hadii laga eego kor hadii maanta la isku haysto xariiqii yaraaye gaarigu marayay hadii la isku haysto hadaanu qaybta shanaad nahay annagu meelaha kala maanaan gaarinay qaybta shanaad hadaanu nahay haddii maanta la isku haysto xariiqii yaraa ee 7 mitir ah ee maanta baawrud mariyay mar haddii la isku haysto ee annagu horta waanu gaadhay guushay alxamdulillah wey ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka xaq u dirka ee caynkaas sidii sheekh Axmed markii hore uu sheegay waa tilmaamay aayado badan ayuu ku tilmaamay xadiisyo fara badan ayuu ku tilmaamay misaal ma laha oo wax aan hal ku soo koobi karno ma jirto waxaan leenahay guusha maanta aanu gaadhay ربي وهنا كمان نقبل لنا هاي علم كلا لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون قرنتاي أيها إشارة لما قبلنا درارتي هالك على الصوت كلي درارتي هالك على الصوت كلي إيه علم كلا لا إله إلا الله محمد رسول الله أي الصومالي وحيجوجا أي وضع فرحين تطبوح إلى هذا خير ما تقالمية خير ما تقالمية إسلام ما تقالمية إسلام ما تقالمية ونك الله يقارنا با وتقالمية ونك قال باني تجيب شيء كم الشيء يستجع عايز تجي كل كي وراه كل شيء كم الشيء يو تحريف كله من نقاطه وأنا كتير ده تحريف كديه يجري وح عربي قرطي إما هو حن وح إلى هيجري نتما هنيجي ويا فقع ربنا وأنا وقع السياق برهان مركا وكذا بلا شيء وشيء حاسس سو أورن ماينو إسلام أورن ماينو مسلم كمثل ما بكره ما أنا خيرنا ما هي إسلام هو إنتي إلى هاي كرنا سوا بسور كذا وحن لنا هاي oo aan halkan inoo ku qirayna ma hadda aan joogno dadka kale ee noo ogina hanoogu soo duceeyo waana nu joognaa maanta ma hadii waanu joognaa waanu taaganahay hadalkaygii waxaan kaga baxayaa isagoo oo jaamac nuur odayga jaamac nuur ku wareejinayno ma haddaanu maanta taaganahay hanaloo soo duceeyo hanala ku soo ogaada saati alxamdulillah maanta waan taaganahay wallahi subhanahu wa ta'ala bismillah Allahu akbar Allahu akbar أنا وحنا كور رمية أبابك وضيعت السبت هي لواتف كذا أي كلمة ضيعت أبابك يسر هي لواتف واحد كلمة تقال كيف على كلي تقال بالعرب والنقطي لأنه تقال شعبي وضي عيونه وحلو تلي إن لصور وريو دجالك أردل قريب ده سنم تكبير قريب لم ده سيدي أي تدوين هو بقادر الهاي بالله لقول خلق عليه تبدو حل السبين ويالا كاركسين كل دجال جريسي مركي آنو شوغني فرنتا حرف فرتي داهيت أنا وقصة نقولني كدي مركي دجال كده ماذا حردي تكنيكا waxaanu group u joojinay oo aanu u taagnay si aad uga buuxsataan wajiyadooda inamadii ku dagaal galay qoriga labada ugu sareeya ee qoriga afkooda soo taagan waa dhaqaatiirtii ururka ama kooxdan tiknikada oo la jooga
maqlaysaan waa jiibkii iyo radfatihii waxaan gasariiro galiilyada saanta gankaygu istaago bogaygu dubaaxsho raggaad garanayso haddaan gashigaygii ka goosan karaayoon ka soo gudayaayo haddaanan gadoodka liflowguga maanta la soo hadhin guusha waxaan gabaygayga gubaabada ciilka gubtoon ladi waayo ninkiina gumaada garaada bilaashle gaashaan lagu siiyo mid buun wada sheegtay buug laygu ganaaxo la soo gajajleeyo haddaan giddigoodba garbaa ka rifaayoon ka soo gurayaayo haddaanan gadoodka lixlowguga maanta la soo hadhin guusha waxaan gabaygayga gubaabada ciilka anoo garbaduuban ilmada gu'i weyday gadkayga dareerto waxay duntu yeeshay haddaan gundadiisla gooyaasha ximraysa gallaa laga buuxso ka geysanayaayo haddaanan gadoodka lixlowguga maanta la soo hadhin guusha waxaan gabaygayga gubaabada ciilka gaadiidka hayaamay garqaadka iyo awrta geeraarka la soo hadhin guusha waxaan gabaygayga gubaabada ciilka baro ragga hogaamiya magaalada jiilka hore ragga dawladdii soomaalida kaleetay maxamed kaasare ciidamada guulisay raggii hogaaminayay kooxaha dagaalka hore ciidamadii soomaalida wuxuu galay 1955 afku ingiriiska waxaan jiray boolgaarkii janaraal daa'uud ciidamada SN waxaa aasaasay ciidamada ugu horreeyey sayid cali ee kuwii ugu horreeyey ee naafeeyey wuxuu dagaalamada ee weerar kasta oo SN gashay bariya galbeed 8 sanood intooda 190 in maqan waxaan jiray taliyihii ururkii sayid cali ka dagaalami jiray 1994 buuraha sheekh iyo agaakooda imikana waxa weeye taliyaha guudka sida ku xiga baradheere in badan baa garo doonta waa la sanad bu ciidamada horeysa raggii boqorada ingiriiska garan jiray intaas hore ciidamada soo ahaa waxa dagaal ku jireen isaga inankiisii iyo goowo waxa uu tirsanaya 5 sanood yahay raggii ariyahadan weerar ku gahay ولا يحدث تضاد هو مريا هذا هذا غير الكود عليه وطريقة كل شيء لوات يا بحجة محمد داروش وعيال السوق فراش اللي اعتنان كري يتنا كور فوق علي أنا عاد تقالك يا حفظة كوك على الشبيه والله تقالك وطريقة يا بحجة محمد وحوي اليردي فتوات هي تقول له صبري إذا ماذا يفكر في كيف سنة في الجري هذا يسكين هذا ربركة إذا ماذا كذا ترى إذا عندي كلام مالك كاجان تربية ويرب نافيجي إذا ماذا فقشته إما كان هو طريق الروكة الشركة لبا أحمد داره إذا داره الغلاعة يوحو كاوت السنة يا أخوة السنة يا طريقة كوري سنة يا سنكوري وغادا كانت شخصيك والله كومبراني وقولي كذا إما كان هو طريق صلى الله عليه وسلم عبد الله الدين وكلا يريد الرئيس قبل جوره فبعد الوصول وصل بيري وعرض هذا كله إلا قلنا قريب شريعة حفظ وصل يوم وصل يلا لهذا الصور عليه هناك ما يعرف خير عبد الله عقارب حتى ودي تناقره وأنا بعشر وريال اللي صاها حتى وري كذا 10 بها dadka badan ee baabuurta ku lugna way garanayaan waliba wuxuu ahaa qaadi 20 sano oo soo baabuurley sidii sano u dambeysay ayuu halkan ku soo taagnaa
وحصاب عليك كرتيلا أيوة بوري أو كرتيلا قامي دجال هي بعوض دجال قبل البلد كم قاطع بعوض دجال وما ديال كان يسوي عبد المجيد رعي السواني بعد يصير رياضي intaas waa iga barid nimanka ku jira sidoo ay aan dadka aad ku aqoon dadweynaha hadda sharciyada jamada kornada iyo madaxda magaalada ragga la fadhiyo dagaalkooda waa ragga iyo kuwa yar oo la meelaha midooda ah ee dagaalka inta hore ama inta joogay hadda waa fiiro weyn kamida si sanad ka saraya iyo waxa oo sana inaad adu iyo waraysi kala ama ay ka saraakiishaas oo tirada badan hadda waxaa laga joogaa 3 si aan dadka idinka soo waxa weeye Ismaaciil Maxamed Cusmaan macal shaqale waa ninka dhexda fadhiya waxa gaashan la saaray muddo dheer ciidamada ka soo shaqeeyay markii ugu dambeysana taliyaha dugsiga madaafiic ciyaarkiisa markii dagaalku bilaabmay محمد علي عشان الرحلة أنا كشاف عاد وعمل حول قرين تجاز كلابات operation officer second division هرجيزة مقدار في العمل عشان حسين حسن أمورية إذا كعيرك أنا ماذا حول قرين تا أمريكا حمر مقدار في العمل وكان واحد كلام فارق وكان إنسان رجع تعسير سنة يقول هذا الفضل ومسندي أنا كنت طاحرا iyo Ahmed Shaban oo araga dagaalada soo saaray markii horaan ahaa isla imika saraakiisha waaweyn ee dagaalada inta waxay dheer waxaan u fidinayaa afiil ama baaq saraakiisha kale Soomaaliyeed ee ku hadhay gacanta cadawga saraakiisha waxaan leeyahay waxaan ka xumahay in rag badan oo aan garanayo aqoon iyo garashada ku ogaa ay maanta wax ka wadaan dagaalka dadka Soomaaliyeed ugu weyn saraakiisha Soomaaliyeed waxaan leeyahay rag badan oo ku ogaa aqoon military iyo hogaaminba sida u dhici kartaa inay aqoon military iyo tuwa yaaray iyo tuwa kale laga badiya weli waxaan la yaabanahay ka qayb qaadanaya iyagoo oo ogahay inaan jeclay أنا أقول إني كفني فاخر عايم من الصومال عندنا ولي كطيب قادنا عليه قربك يا حاضر من دكاسي يا بني وحوي سراكيش اسمه نفسه وقاض وأيوه قاسمتها وزير لماذا حسين وحرب يظهر يعني لماذا مصلح يوم من أحبابنا الحسن سراكيش الصومالية موجودة سنتان يجي كذا بس كان دوني أنا قرعت هل سياسيات بره كعايضة بضن أيو أسنو كفلية فحيدون يعني إني يقولي وموستان فحيدون يعني إني أمضا خلالة تكن حاقان وضدقا لكن سواني وحكو شيء وحنوض قال من أنا يطاي وكان سواني بالمانتي ولغا حريات هرس الفاشيس إن لهم مامور داد قولا دايب قرأ أو قرصور حس أرك وإسموك هايم إن آمو وضحورينو كأبكو يجوغا ككسما يجوغا يكسينا جوغا سؤال باي مرس وضام حاق ولد وقلون مقدمة كانوا كريا وحوية أود أيام كنتها كسما واحد إمان إنتا دوا إن الدقال كان بس وكشا وأظن أنا بعد أيام من سأل الدجال كقول الأوجارسي هذا كواحد رفيق المصنف وهرجع أساسي وركان تراكيش بسوه الرئيسي كدروي ده كار يا تراكيش كمان نروح نتابع كده يا صلاح بسم الله الرحمن الرحيم وإلهي تأتي ما تأتي saraakiishii xisbiga aasaastay iyo saraakiishii kale gudaha ka shaqaynay sida isku yimaadeen sidaa daraaddeed waxaa halkaa ka muuqanaysaa in halgankii ay ku jirtay ummadda Soomaaliyeed ee jihaadka xaqa ahaa inuu gebageba yahay ayaa ka muuqata halkaas
ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay si xaq ah uga soo qayb galaan dhammaan halganka jihaadka lagu jiro khaasatan saraakiisha Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed ee cadowgu isticmaalayo taliska siyaad barro uu isticmaalayo uu ku xaaqayo ummadda Soomaaliyeed iyo shacbiga Soomaaliyeedba ciidamada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa halgankan wuu guulaysanayaa nin walba dib u xisaabtan waxa mataasaad aaminteen waa su'aal weeyaan waxaan u sheegaynaa ciidamada Soomaaliyeed meel kastaba ha joogaane jihaadka iyagu joogsan maayo dhammaantay waan u dhimanaynaa intaan waqtigoodu ka dhicin ku soo biira jihaadka xaqa ee ay ku jirto SNM meel kastaba ha joogtee dibadiyo gudahaba hadalkaygii waxaan uga baxayaa saraakiisha gudaha ka dagaalamaysay ee sida xaqaa uga dagaalamaysay maantana ku soo biirtay xaggii xabadda ay ka soo dhacaysay ee SNM ay ku soo ridisay cadowga oo gudihii iyagoo ka soo baxay maantana xaggii dusha ku soo biiray cadowgana si dhab ah ugu ridaya حبطة تقطع يتقري بقى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدنيا. أنا بقى يا شاء الله إسماعيل محمد عثمان وكتب سنة طبنكي سركال استراكيش السريعة كسو بيري هلجنك حقها سنة ما يوضو لا يدى حرين أيوه فاشيستيغا siyaad barre ummadda Soomaaliyeed laga qoraynayo waxaan jecelahay inaan warbixin yar idinka siiyo dhibaatooyinkii iyo wixii ka dhacay intii aanu ku sugnay waddanka Soomaaliyeed xabsiga intaanu ku jirnay iyo intii ka horreysayba sidii muxuu ahaa aynu la wada soconnay dagaalku markuu ka qarxay gobollada waqooyi waxaad wada ogsoon tihiin dhammaan dadkii u dhashay gobollada waqooyi ha ahaadaan saraakiil askar iyo shicibba wixii galay gacanta muxuu ahaa maxamed siyaad barre in ay noqdeen wax la laayay ka mid ah saraakiishii xabsiyada gashay xabsiga Hargeysa ayaan galay waxaa halkaas muxuu ahaa ku jiray lagu gumaaday saraakiishii iyo askartii ka tirsanayd ciidanka ee ka u dhalatay gobollada waqooyi wixii yaraa soo haray waxaa loo gudbiyey jeelka Xamar waxaan ka mid noqday raggii galay jeelka gaarka u ah maxamed siyaad barre ee uu ku gumaado ummadda Soomaaliyeed jeelkaas oo ah jeelka Hangashta intii halka aanu ku jiray dhibaatooyin badan baana soo maray oo waxba halkan laga sheegi karin ma aha jeel lamida jeelalka adduunka waa jeel maskaxda dadka lagaga dooriyo dadka lagu dilo lagu jirdilo lagu baabiyo maxamed siyaad barre lama sii daayeen ee markii uu adkaysan kari waayey qaylada caalamka cadaadinta kaga imanaysa muxuu ahaa hay-adaha adduunka ayaa muxuu ahaa ay ku kalifay inuuna sii daayo sidaa daraaddeed maalin casara oo taariikhdu ay tahay 19 Noofambar 1988 ayuu casar sidii wax waalankii oo ordaaya jeelkii noogu soo galay halkaas ayuu dabadeedna nagu soo fayliyey wax kale sidaa nagu eegay ayaa wuxuu yidhi waxaan idinku yidhi inaan sii daayo ma jirto maxkamad la isbariyey ma jirto wax la isweydiiyey wax sharci la yidhaayo waddanka ka dhisanina ma jiro sida annagu aanu ahayn ayaa meelaha kaloo dhammina ahay markii aanu soo baxnay oo aanu xabsiga ka soo baxnay ilaahayna naga soo daayey waxaanu tala ku gaadhnay in aanu muxuu ahaa naftayada ku biimayno si aanu u marro meelo halisa oo aanu ugu biirro halganka gobonnimo doonka ee lagaga xoraynayo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada iyo hoogga iyo jabka uu geystay maxamed siyaad barre aynu ognahay inuu yahay maatilays umulado shicib baabiye waxaasoo dhan yahay aynu ognahay
haddaba hadalkaygii anigoo intaa ku soo gaabinaya aan halkanna idinka magacaabo saraakiisha soomaaliyeed ee ku soo biirtay ciidanka SNM annagoo horeba uga tirsanaan jirray haddana maanta nasiib wanaag waxa ah inaannu joogno goob ka mida goobaha ay xoreeyeen saraakiishaasi oo dhammaan saraakiil sare ah magacyadooda halkan aan idinka tiriyo oo isugu jira dhowr nooc dhuumahooda mid 130 mm ay tahay dhuuntiisu 85 mm 100 mm 122 mm iyo wax la mid lix baabo oo isugu jira BM21 iyo BM13 oo isugoynteedu ay ka dhacayaan ilaa 150 dhuumood lixdan qori inta waxa dheeraa madaafiicda lidka dayuuradaha Zu-37 M40 oo gaaraya ilaa 50 dhuumood dhinaca hawada waxa jiray saddex diyaaradood oo mid waliba saddex jeer min saacad maalintii ay rusheynayso isugeynta diyaaraduhu 9 saacadood bay maalintii rusheynayso inta cad soo jeeda ila diyaarad meel dheer kaaga imanayso maaha garoonka ka degaysaa ka soo kacaysa waxa magaalada ka soo dagaal galay oo lagu soo jeeyay 25 taanki oo magaalada dhexdeeda ka soo dagaal galay ciidanka lugta ee cadowga wuxuu u qaybiyay cali sootar maalinta 8 guuto oo jabhada u badan guutadii horyaal iyo guutadii uu watay ninkii la oran jiray guutadii Soomaaliya waqooyi galbeed markuu dambe la baxay tu abooya iyo kuwa kale bal ka soo qaad in 200 dhuumood oo mid waliba gumaceedu wax ka dila 100 mitir isku celcelina garbasima loo soo dhimay lagu soo jeeyay magaalada 17 kilomitir marka aad isku celiso magaalada 3 kilomitir ayay burburiyaan dabkaas oo aan quraanka ka baxay way markuu mid ficil ku dhaco 100 mitir wax ka dilaya kii kale waxa loo jirsiiyay 50 mitir labada fac dhexdooda wax ka noolaan kara ma jiro magaalada cabirkeedu waa la hayaa sida shabag ayaa lagu soo jeeyay waxaan loogu talagalay wax nooleen oo ka bixi sida uu sheegay mujaahid muuse biixi cabdi waxa magaalada maalmahaasi cuskatay duqayn ballaaran taas oo ay si araxan darro ah ula dhaceen ciidankii niyad jabsanaa ee faqashta oo iyagu micin ka dhigtay in ay ridaan hub wixii ay hayeen kuwii ugu cuscuslaa haddaba iyaga oo iyagu markhaati u noqonaya dembigii iyo dhagarta intaa la ekayd ee ay galeen waxa daawadayaal aanu idin jecelahay inaanu idin tusno ciddii mas-uulka ka ahayd oo uu hogaaminayay ama guutadii taangiyada aan idhaahdee madaafiicda oo uu hogaaminayay dhagarqabihii aweys geedow iyada oo uu dalbanayana waa kan صالحو ايبر افر كبحي هاي تمدير لaba xabo degdeg arid انت حركيتين هذا كوشي ما يتتابع بطل حركته انا كوشي ما هي فلان بقول يا سلام الحبري والله من العبري وكبيري وحدك اللحدي وكنت قوي وبابوزا وباقي ومالو بهتن نور الكبيري وبايبوزا وكبيري وحدك اللحدي وكنت قوي وبابوزا بدبراني
bogiyo wadanow nafsigu boganay ku badhbadhaatay si kastaba ha ahaatee iyada oo burbur aad iyo aad sida ay xaqiiqadu tahay si aad uga ballaadhan ayay ahayd sidii ay filayeen in mujaahidiinta SNM ay u naafeeyeen cadowgoodii run ahaantiina waxaa la odhan karaa 100% way u fushay hawshii ay uga baahnaayeen ama u soo qaadeen weerarkaas iyada oo ay garab ka heleen dadweynahoodii ay halganka soo gaarsiiyeen waxba la isulama hadhin balse caalamku wuxuu aad ula yaabay awooddii birta ahayd ee niyad samidu ku dheehnayd ee mujaahidiinta ururka SNM markii haddaba taliskii fashilnaa uu isticmaalay awood adag wuxuu lahaa iyo wixii uu heli karayayba isku keenay magaalada Hargeysa ayaa 80% magaalada Hargeysa ay burburtay isla markaana labada dhinacba arrini ka baahday waxa aad u soo baxday haddaba baahidii ay mujaahidiinta ururka SNM u